السلام عليكم أقاسمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسودو دلك هويو. أقاسمي برنامج أودان أو دوفتانا أو dadka aad ku kaxaynaysaan oo geynaysan Europe America Australia ba barnaamijkaas aan maqalnay barnaamijka dadku way ku wareersan yihiin in aad budget ku soo qaadateen oo inaad been u sheegaysaan inuu run yahay barnaamijkaas rabnaa nooga faalootid بسم الله الرحمن الرحيم horta wariye aad baa u mahadsan tahay waa su'aal muhiim meesha ku jirta waana su'aal maaragtay aan sugeynay in la weydiiyo barnaamijkan waa barnaamij aad u qiimo badan waa barnaamij dadka Soomaaliyeed wax u taraya dhamaantood yar iyo weynba waa barnaamij ay ka faa'iideysan karaan ummadda Soomaaliyeed ee cadilan abaaraha gaajada rafaadka ku nool barnaamijkan waxa weeye barnaamij hay'ado caalami ah ay iska kaashadeen waa barnaamij anagana loo soo xilsaaray fulintiisii waxaan wadnana wax kala ma aha waxa weeye ummadda Soomaaliyeed cid allaale cidii rabta qof walba oo Soomaali ah laakiin hal qof maaha waa qoys walba oo Soomaali ah meeshuu ka raba adduunka inaan geeyno ama Yurub ha ahaato ama America ha ahaato ama Australia ha ahaato saddexda qaaradood baa ugu badan inta dadka geynayno Afrika iyo Aasiya Soomaalidu awal bay hore u tagtagi jireen oo ay u fududeyd marka saddexda qaaradood inaan u fududeyno oo ay tagaan qoys kasta oo Soomaaliya oo raba laakiin hal shuruud ku xiran meesha shuruudaas waxa weeye reer kasta oo Soomaali ah oo hadduu rabo 7 qof ka koobnaado 10 qof ka koobnaado waa ognahay qoysaska Soomaalidu waa iska tira badan yihiin 20 ka koobnaado 4 xaas ninku halaado qoys kasta oo Soomaaliya waxa la rabaa inay isku fikir noqdaan oo meesha la geenayo haddii ay rabaan Mareykanka in la geeyo ay isku wada raacaan qoyskaas yar iyo weynba in Mareykanka la geeyo haddii la rabo in ay Yurub u qaadno ay isku raacaan oo kulligood ay wada saxiixaan in Yurub ay u socdaan haddii khilaafalkaas uu ka yimaado reerka khilaaf la yimaado waa hakinayna laakiin dad cidii isku raacsan oo Soomaali ah oo qoys ah in aanu qaadno waa qaadayna waan u fududeynaa barnaamijkan barnaamij jira weeye waana barnaamij wax ku ool ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ka faa'iideysta أقاسمي أدبا ما هسنتها أقاسمي واحد شراء دتك كحيريسان معها كلية دتك أباروه باباشين دتك الظروف يسن واحد شراء ضد هنتي لياله واحد شراء ضد العج هيسته وضدكوا دي حرتيو أبابلونه إني بحان ربا مركز محد كله دتك والله أنا وجرود عن كحر إنه هرت معهن قفك أما هنتيها هذا أما عيرها هذا وحس أنا لما قصيصه لكن جرود الكوال عن ولا واحد ويدك إنه هرت إسكو وافقسين إسكو تاجرسين إسلو قليهن إنه بحان أو هالميل أي ولا آذان أنا أما هنتيها هذا أما عيرها هذا عدول بأبابلون إنه تكتو ونقعد ستين أنا كلا شقينا وكلا شقينا وأنا قاعدين أقاسمي واحد نشكت عدول بقاعد إنسان ودي الصومالي ورن كحين إنسان وياه دل كان يلوجة تجيه dalka waxa looga tagay intii ku hartaa looga tagay cidii anagu cidna khasbi mayno cidii ogol inay wadanka joogto ha joogto ma garatay ilaahay ku nabad yeelo laakiin cidii rabta in la qaado oo baxaysa anagu waa qaadayna adeer macaan agaasime waxaad noo sheegtay dadka oo dhan inay tagayaan uusan waxa weeye qof walba taajir iyo faqiir iyo kii daruufaysanba dalkan yaa u hareeyay markaa agaasime annaga taas shaqadeeda maaha mana aha waxa aan hadda waraysi adiga qaadaysay mudnaan uma la taasi saan u arko laakiin waa su'aal la isweydiin karo dad badan baa isweydiin kara annaga dalka hadduu mid ka hareyn Soomaaliya oo cidna ku hareyn waa qaadayna cidii noo timaada waxa weeye annagu muhiimadeedu waxa weeye dadkeena caawino oo meesha ay ayagu jecel yihiin in aan geeyno waxdana annaga loogu jirta lama arkayo wax dhaqaale aan ku qaadanayno ayaga ayaan u danaynaynaa dantooda ayaana ku jirta inay maaragtay meel ay isla ogol yihiin ay tagaan ay noloshooda iyo maaragtay future-kooda iyo aytiinka carruurtooda si ay uga shaqeeyaan baan annagu kala shaqeynaynaa aad baa u mahadsantahay والله وأرنا عادي أهين وربما ما غير كنا ما قدر صدات لو ونودر غير كنا مليون بيدلاني ما نجا بكل جارنا طلوا برنامج كان بين ملقى شيء كرا قاسمين سؤال شاودية أهين أفر بس أودر فريدة أفر يلا باتن كساعة وهذا محسن والله دتك برنامج بوصل بحي دتك لما في بيساوي وتشيران وهدول كل برنامج بكفاية سنة يعني وحبس سؤال كم سنة هذيك ور برنامج هذا سوين دي سنة أنا قاعد سوق كسام مقلي هذا وحنا وقاعدين برنامج هايد وضوء للي هدتك دم بالدوفنية Soomaaliya dadka dhan baa laga qaadaya la geynaya Mareykanka iyo Yurub iyo Australia loo qaadaya baa leeyahay dadka Mareykan maxaa falaynaa ya Mareykanka maxaa falaynaa yaala nama wadanka yaalaan wadanka yagaan saa afrooda u sameysanaynaa waxaan ku inta fresh
والبلاد maraykan yaala maraykan shaqa taala waynu shaqaysananaa wadan dhisan oo qurux miirana weeye wadankan aan dhisnayn oo dadkiisu dhisan waayeen oo aan saa qof wax ka yeelaya aysan jirin joogamayne waynu ka baxnaa haddii ilaahay idmo bari subax isdiyaar gareeya ilmaha iyo adigaba waxaynu taganaa maraykanka hay'adu sharci bay leedahay sharciga waxa weeye dadku in is khilaafsaneen iyo isku meel u wada socdaan qofna uusan ka hareen baa leeyahay waxa la yiri Abdul Kuro meesha ay ramaan wayna hal meel wada aadayaan dadkaas oo Minnesota ma ina geys Minnesota ha Minnesota ma rabnaa siyaaro baynu rabnaa anaga maraykanka siyaaro baynu ka rabnaa Minnesota fiicani Minnesota ma hadda khilaaf bilowna marka oo Minnesota fiicani Minnesota la geey Minnesota ma rabnaa siyaaro baa rabnaa ilmaha u sheeg ya haddii maraykan la tagayo Minnesota inaad tagtaa fiican Minnesota ma hayaan Minnesota waxba ma yaaleen islaama ay amaanay ya islaama amaanay Minnesota ugu fiican baa islaama ku amaanay Minnesota ma rabnaa siyaaro baa caasimad weyn ah baa leeyiri oo dad badan ku nool yahay anagu siyaaro baa rabnaa hadda yani iskhilaafin hay'adu dad iskhilaafsan ma rabto dad israacsan bay rabtaa kala reebaysa wayna anaga dhan bayna reebaysa naga tagaysa haddii aan iskhilaafno ilmaha ka dhaadhici waxa tiraahdaa siyaaro baynu rabnaa abka u gali xagee rabtaa marka la yiraahdo maraykan xagee ka rabtaan siyaaro haddaan hilmaaman oo Minnesota tiraahdo Minnesota waynu baaqana waxaas hadda baada nooga ciyaaray hano isakaalumin miya ha ciyaalkana u sheeg balwaay ya balwaay haye saasoo noo balana laakiin hal qof maaha waa qoys walba oo Soomaali ah meeshuu ka raba adduunka inaan geeyno ama Yurub ha ahaato ama Ameerika ha ahaato barnaamijkan maxay tahay barnaamijkan dhoofka ah hala daawanay kan magaalada hadda social media magaalada isaga ku jira niyo umadiba waa yaabana anu awal qalbi ka dhoof baan hayni iska dhoofaato anu awal haati awal qurbi joog man iska aanu qalbigaasan ka maqnaa timaya waa baxayna anu barnaamijka aad baan u helay barnaamijka boqolkiiba boqol waa ka helay barnaamijka ina baxnaa Australia qorshaystay waa qorshaystay markiiba dhagaxaantaasaan cunaa anagu war adna حاول شكلنا كلين هايستان ورق صاحبنا يا ورسيت ما شاء الله ما شاء الله بصح سيدي تعال قلت سوق ما شاء الله وران وتغي ولغي قلبك دhof ورما هذا برنامج كبدينا جوغان اسكو هيستي اول ماذو ها انا وتغي يا راعيني المكاس دhof ka warana استراليا انا قلت تغي بس ما كان بقشاطك ورادي سيدين حارتك ورما والله كنت باوشيس تعالين ها وين هذا ما عرفت ورقه ما يقول لي يروبي ها برنامج dhof oo la soo dhigay oo waliba wariyintu ninka wareysto buleeyahay iraawiis ixtaam wadanka madaxdiisu feelashooda waa soo dhiibtay برنامج عرض ku jira meel walba Facebook rada iyo TV-yada meel walba dhafkaaba oo la leeyahay dadka Yurub iyo Ameerika iyo Australia la geenay ha fudud lama wiila dhashay bay ka yeeri waayay wadankaas aan baan seekaaga yeeri hal shuruud fudud baa la isku xiraa samaxa istiraadeen idinka hadda ku tashatay ninka wixii weligay waa dhoofsana guriga hore waa qalbi dhoof maska ninkan wixii weligay qalbi ka dhoof ah ninkan ninkan Australia qorshays waa noo qorshaysan tahay tagay aadan ninkan waaba tagay buu leeyahay ninkan waaba tagay buu yiri waaba tagay buu yiri waa socdaa aduguna ya aduguna de wadanka niman yahay anu wax oran la ragga wadanka jooga adiguna maxaa qaban cid ku harmaysa wadanka anagu tagaynay sidii waa ka tagay nimanka wax oran lahayd wadanka jooga haana wadanka hala joogo haye wadanka yaa laga tagay maxaa aad u danacsanta marka ragga askar anu ina dhakhtar uga baxo wadanka dhakhtar wadanka ina wax barata soo wax barata ama wax barasho aadamahane kama baxeen bade wadanka wixii dhakhtar ba milgii raacsan iska soo xamaanay warraatayna raacmeena warnimayo midaan sheego anu ni weyn baan ahay nin weyn wax garanayaan ahay oo xandul kuuri khibrad leh qurbana garanaya dhibtiis tagayna wadankaaga hooye meel ka fiican male wadanka yaan laga tagin wadamadan u socono Yurub iyo Ameerika Australia leeyihiin dadkooda dhistay anagu keenna aynu dhisana dhalinyarooy oo quruxsano oo hagaagsanno يا وهدي ذا والله يقبر يا كالي دوف هدول كورو يا وحال عقاد مع فمل كان كودو فينا اللي هذا أنا وهدي ذا مالين يا همين بالي قبر يا سنكاس اللي قشة قبر جام وكوكل اللي من سيقول هاي وران دوفنا هذا محاتر هذا لا ما رمنا نقول هذا مالين يا همين ودن كني عادات صور غير ملهي فمل كاغا ولي جاي سكادو فين المهاجا كادلوبية أديك دلوبية المهاجا هذا قراء عنكرن وأنا وشيء كرين وريا والنتين
muqul baartayna ku dhashaan ganacsatadii baa xataa tagtay yaa ganacsatadii nin kamari haystay halkan interes madaxweynaha madaxweynaha hadda bas link yaa wax ka gadanana yaa wax ka gadanana madaxweynaha socda macaa bisi xaraystay xitaa xagee wayaa wadanaya marka fiisa xagee madaxweynaha xaraystay xitaa bisiaan lagu baxayo anaga waddanka yaa marka u haray cid wajis ku hanadeero wardalka yaa iskale ma dhagaxaasan xunaa war maxaa cunaysaa soo biriisi baa soo ugu macaan mid baa rabe waxa war ninkaan muxuu la shuurinayaa ma waraysataan warninka adigu ka war waxaa muhiim ah niman yahow waddankaa laga taga haddii la rabee waddamada la tegayo inaan la isku ciriirin oo waxaa weeyaan jaam aan laga dhigin waa naga weyn waadin sideen waa nin weynba su'aal ba ilaa xal iga guuxsan haye haddaan tagno waxa ka qorato waxa leedahay nin kasta wada qoro ama aha anu kala kayga jooga waxa hadda u qariya xataa u sheegi waayey ha wixii baa yaa dhow imaan America u socdaa waa ninkaan Australia noo sheegay adna kulli ala xal ma anigu kaygu waa ka waddanka waa ka ha waa baqayl baa ninkaan kaygu waa ka waxsansa waxa ka xisaabtamaya waddanka u socda hadduu sheego in faylka lala kaygu waa ka ilaa shaqooyinkooda isku ciriirinaya dhow waa ka ha war waddan war dhalinyaro war ninkaan war taladiisa ka xumaan talada waxaa la yiri iyadoo kuguma noole adaa ku nool maanta haddii talada idinka fikirto waddanka dhisan weydaan waddankeena shaqaa taal macdan baa taal kalluun waa kalluumaysan kartaan dhagaxaa jabsan kartaan guryaha dhisan kartaan nin baaber wixii waa burnaan jeesay aaway hargeheedi mar hadda qof caataa iska ha aw hargeheedi meeday mar dawaal loo qabtaa de afraata ka odayaal baa noogu sheekeynaya macdan baa waddankiina ku jira shidaal baa ku jire meeday macdan mana aragtaan mana aragne waddanka u socotaan macdanta waa tan dhiigga ka keenaysa waa ku sidee macdanta waddanku waa leeyahay laakiin qayb waxa weeyaan jiilka dambe wey insha Allah jiilka soo qurba ku dhalamsan marka waa dib baan imaanaa doole waddanka inta markaa ku dhashayna jiilka annaga dhalay hadii cid u tagayso dadka dhalay de ha tageen baa la oran lahaa laakiin adinku aan waxba dhalin de maxaa ka tagtaa nabi aanu mid baa idin sheegay la taladeeda ugu dambaysan ku darsan lahaa haye taladeeda ugu dambaysan ku darsan lahaa waxaan lahaa barnaamijkan dadkan waddanka dadka ka qaadaya oo ole waa idin dhoofinayna maskax kale wataan waxay rabtaan waddanka intii naga dhameeyaan in iyagu intuu degeen macdinteena la soo baxaan khayraadkeena la soo baxaan dad kale ku beeraan innagana wadamo sheena la geeyo hadhowna kuwa qashin gurayaashana la ka dhigo waxa markaan waa yeelinina madax xanuunkaasaan uma dhageysan karin kaaga dhigashada ku roole su'aal ba ilaa xal iga dhex guuxaysan yaa markii dadku tagaan yaacaan ee qurbaha galaan qofba meel qabto yaa u haraya waddanka milkireynaya waddanka ha waddanka hadda jooga waaba socotaa Australia u socdaa baa leedahay see wax kaaga dhex guuxayaan waddanka hadda Kristaan noo soo dira idinka jooga waddanka kiradeeda qaybtayada qaybteena cabsi dee joog oo kirada ka qaado wallahi qofkii jooga lacag u haraysaa qofkii jooga baa waddanka ka macaashay rameeqa waddanka anaga waa noo soo diray qurbaha laga soo diray kirada riyaaya maskaxda naqaajinayna anaga qorshe aan degsaday waxay way go'an yihiin waa baxayaa iga daaya furfurka tiimkeena ka oday waa loo oday waddanka ku qanacsan dhawaaqa naga daaya anagu waa tegeen haddaa waddanka ka soo tagtaan oo soo kireysaan qaybtayada aan idigu nimaado wabillahi tawfiiq qaybteena nagu imaano noo soo diray waxba imaan bayna anagu meeshaan waa la wacayaa hadda la wacayaa markan reerku wuxuu xiran yahay reerkiini halow ma xirateen boorsada hadda soo baxaya hadda mac salaamo waa salaamaya hadda xaafadda ha waa baxaya waa salaamaya bye bye hambaliyo waxay kaagu dhacaan waxa ilmaha markuu ilmihiis baada ninka wax ku dhaca odayaashan warkooda iska daaliyo noo soo dir lacag haye way hadhow idinka shalaayinina hadhow wariya saaxiibo aniga adiga meesha ku soo harnay hadda ninna waynu waata nin rag saaxiibana waan aniga reerkaygu hadday malaayiin dollar dahab qoorta lay suraysa baxayni reerkaaga ilaasho reerkaygu waa reerka u dambeeyo oo lagu rogo meesha uu noqonaya Soomaaliya iyadoo ul layga saarayo xabad layga saaro waddanka ma harin si kale uga baxo ما ببع كاسارك ورواية يسعى سنة والله أنا صاحي معاه ورعيا كير كايو أنت وعدي أيه واحد أنا كاتب من الشارع عبيا قولي قدرنا إيمان كان آيو رها وطن كيبا لدب عنها عن آلي وأنا لك اللب عني يا ودمار أيه صاحب أفرق حقا ميلاس كذا سوياه maxaan ku dhigay nin walba waxaan ku yiri war wadankayaan laga tagin aniga reerkaygina mar hore aan soo diyaariyay waxaan rabaa America inta soo tago inaan shaqaysto caruurtayda baashaal waxaan lagu kala tago aan dilbo balaay mujeed kiiraha wadanka hal joogo wadanka la iimaansado
asaga adeer wacyigelinta ee waddanka u haraya waddanka maxaa anigu waddanka dee waddanku waxba kama maqna laakiin haddaan leeyahay gabadha ciyaalka iyo xirxir oo diyaari leemanka lagu bixiya war ummadii dhan baa kaaga horeysa haddii dhoof faqasho oo sii taagan baa boorsooyinkooda xirxirtay haddaan leeyahay ciyaalka iyo ciyaalku isku mowqif ha noqdeen aan dhoofeen ilaahay mar hayga dhoofi